alle naxariistii jannaha ka waraabiye waxaa degmada Cilaf Weyn xagaalaha bigidhka aas qaran loogu sameeyay sheekh beledkii degmada Cilaf Weyn sheekh Saxaaq aw jaamac warsame oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa isla markaasina meydkiisa la keenay degmada Cilaf Weyn taasi oo sheekhu hore ugu dardaarmay in lagu aaso degmadiisa aaska qaran ee loo sameeyay sheekha waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag gudoomiyaha degmada Cilaf Weyn ku xigeenkiisa xildhibaanada golaha deegaanka salaadiin cuqaal waayeel mas'uuliyiin mudan iyo marxaatigii ugu badnaa ee ka qayb gala aas lagu sameeyo degmada Cilaf Weyn hadalka waxa isaga kala dambeeyay maamulka gobolka Sanaag maamulka degmada Cilaf Weyn xildhibaanada golaha deegaanka salaadiinta iyo cuqaasha saaxiibadii sheekha iyo waxgarad iyo duqeyti badan waxayna dhamaantoodba isla qireen in sheekhu ku suntanaa ka shaqeynta diinta islaamka iyo shaqeynta bulshada deegaankiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ugu waxaan tacsiibtii raayada u diraya guud ahaan dadweynaha ku nool gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Cilaf Weyn waxaan ka tacsiyeynayaa geerida ku timi sheekhiina sheekh Saxaaq aw jaamac warsame waxaan leeyahay ilaahay dhamaantii cawsan haynaga siiyo gaar ahaan xildhibaan Axmed Saxaaq egas xildhibaan Axmed Saxaaq aw jaamac oo aan ka tacsiyeynayo geerida aabihii ku timi Saxaaq wuxuu ahaa sheekh Saxaaq wuxuu ahaa mahdi buu ahaa magaalada caanka ah ama gobolkaba caanka ah wuxuu ahaa macallin bare ah oo wax badan ummadan soo baray sidoo kale wuxuu ahaa mid ku caan ah isku wadka bulshada iyo dacwadda diinta islaamka sheekh Saxaaq waxa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa qof la yaqaan oo aan qodobnaanta iyo maxaan ku raahdaa arrimaha qabiilka aan maxaan ku raahdaa ku suntanayn ama aan lagu sheegin oo lagu calaamadin buu ahaa sheekh Saxaaq maanta ilaahay tiisi ka dhigay ilaahay ba xaqiisa u oofsaday oo inuu ducaynaynaa inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo inuu ducaynaynaa aniga xasuus gaar ugu leeyay wuxuu ahaa qofkii shaqadii koowaad ee aan u dhaqaaqo iqra waliba iyadoo da'laygaga reebay ama yaraan laygaga reebay 2003 doorashadii madaxweynaha buu munaaqib qoray isagoo xilliga ahaa gudoomiyihii komishanka ee degmada daahan iyadoo laygu wariyay abuu isagu waliba iga reebay xasuusta gaar ah buu igu leeyahay umaan yeelan nasiib anigu dadkii uu macalinka u ahaa inaan ka mid noqdo laakiin jiilal uu isagu soo baray wax baana baray anagana aad iyo aad baan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadiiba sidoo kalena guud ahaan degmada Cilaf Weyn way ka muuqataa sheekh Saxaaq in dhaweyd sida la isugu yimid degmada meedin arag wanaagiisii bay ka marakacaysaa daa'iqatul mawt maanta waxaynu joognaa xabaashii sheekh Saxaaq oo jaamac sheekh beledkii degmada Cilaf Weyn runtii haween marka koowaad waxaan leenahay samiriyo inaan saadiq Allah naga siiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay sheekhu iyo sidoo kale dadweynaha reer Cilaf Weyn inta magaciisa magaciisa garanaysa waxaan leenahay samiriyo inaan runtii waa tiir ka baxay degmada Cilaf Weyn wuxuu ahaa door ku suntan samatalisnimo runtii wuxuu ahaa haween ganacsade wuxuu ahaa maxay xiriir kala duwan buu soo qabtay sidoo inuu ahaa gudoomiyihii komishanka ee degmada Cilaf Weyn muddo dheerna u ahaa muddada uu komishanka joogayna waxa uu ku suntanaa cadaalad iyo sinaan ayuu runtii ku suntanaa wuxuu ahaa nin ummaddu isugu mid tahay wuxuu ahaa nin caalima oo waxa weeyaan cilmi badan oo waxa weeyaan masaa'il kasta oo isku qabto la weydiiyo waxa uu ahaa runtii nin waxa weeyaan maskax badan oo waxa weeyaan mas'alo kasta oo adkaata ka jawaabi kara ayuu ahaa sheekhu runtii wuxuu ku suntanaa isu soo dhaweynta ummadda iyo waxa weeyaan dhexdhexaadinta iyo ka shaqeynta arrimaha nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka wuxuu ahaa haliye isku wada bulshada degmada Cilaf Weyn inta degan waxaa nin dadku siman yihiin waana u kala dhaweyn ilaahay waxaanu ka baryeynaa maanta ducuu naga mudan yahay inuu ilaahay qalbiga u
سؤال أوفي إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نفل وقدمي موتك ما أنت أهاتو نحن هكذا ما أنت تأسيسي شغلنا شيخ العبده أوليك مجاعة كوميشنيرك مجاعة معلك مجاعة وعيرك مجاعة إسحاق أو شامع وحنا لنا هاي ضمان إهلادي قرابة كتير وحنا لنا سمر إن الله كسر صادقة وحنا نقول شيء إن العود سنة هاي بالمدة سيء وهو عامل runtii isku wadka degmada iyo deegaanka waqdabro ka ah hormuudkiiba waxaan leeyahay waa jeex cilafay duntay dibashada iyadoo aan geeyin cimri loo deegayn waxaan leenahay hal naxariisto raasicun kullu nafsi daaqat mawt qaal dhamaantiin waa dhameynaa mawtka waxaan maanta aaskiis joognaa sheekh Isxaaq oo jaamac sida markhaatigu furay bulshada meesha isugu timid ay ku marag fureen شيخ إسحاق وحوها شيخ الجماعة من نبضيها ويارجة واحتروا الدجمة يقوى الكباء عن لنا يسمين الله نقصيه ضمان الذي قرابتي أصحابي يوم قرنك يتولد شمال لاندا سمينهم صادق إلى كسيه السجنة إلى جنة الفردوسات ورابيه ضمان تيوال وضمان يموتك كل نفس درجة الموت الله فولي من وحد أي إفك بشغل استوى آخر اللي تيسا وحانا أمر خاطية إرقدا السجود حباشيس هي أمرك فرتي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون شيخ السحاق أو جامع ورسمة وحوها شيخ البلد كي دقمة علف وين وحكوت ترى من عن ذاتك كلا صاعين من عن ذاتك كلا من كل جلائك كلا يسكودين وحوها شيخي شيوخها دقمة علف وين وحكاها مر حكاها معلم مر شيخ وكاها مر براب وكاها مر شيخ البلد كي لين نقول شيء هذه المسألة في قبتوها من عن ذاتك كلا تعليسان بوها وحلنا إلهي هون الرياء قبل أو واسعية جنة الفردوس هجية إلهي وحن كبر ينا جوز كيسي قرابي سبا إنه ويسيو عوسا إلهي وحن كبر ينا إسحاق وجامع ورسمة إلهي هو محرسته كل آسكي ساكا كرنا السام وآسكرا بالله سميي من غالي أبوها من كسبتن تجمد تاريخي ذا سيدا ليش يجب دفقي كبير عام العامة هوها مركات إلهي وحن كبر إلهي نقود كون نوره إلهي نتجمد عرفين يجمرون السماء اللي برسمه هي وما إلهي كسيو الله المحرسته إسحاق أو جامع وكم دها تيرركا أما أميركي دجمد عيلف وين runtii waxaa ka baxay degmada ceelafweyn ama guud ahaan gobolka Sanaag oday ku suntan taariikhda oo kaga jira haday tahay nabadeyntii deegaankan ceelafweyn oo door lixaad la ka soo qayb qaatay iyo tii Soomaaliland beelahaba intii ka soo qayb qaatay door lixaad la wuxuu ahaa sheekhu wuxuu ahaa oday gacan furan oo deeqsiya oo ahaa damal lagu soo hirto إلهي هون حريسته إلهي هون حريسته حاج إسحاق وجامع إلهي هون حريسته شيخ إسحاق وجامع وهو الشيخ ودنك شيخ البلد بها عيدها مناسبها وناكسن ولا شيخ بها تذكر أنت تشير بها تذكر ودنك إلهي قيامه إلهي وانتم قراتي وشغين بها معلن كذي بها من عامد منك قرآن كذي بها وهو قدومي كوميشنك وهو dadka u dhaxaya reer ceelafweyn original ah aabihiisa sheekha ceelafweyn isaguna sheekh uu ka noqday magaalada weligii uu deganaa dadka isku xiriiriya dadka wanaagsana sheekh albeledka ah buu ahaa ilaahay ha u naxariisto jannada firdawsana ilaahay ka waraabiyo ahlu khayr buu ahaa hadii nin ahlu khayr yahay wuxuu ahaa nin caalima wuxuu ahaa nin kutubta mariya wuxuu ahaa nin kutubta yaqaana wuxuu ahaa ilaahay ha u naxariistee sheekhii waddanka ciidaha iyo maxay ahayd haddii eebbaydankeedu leeyahay rabadaanaha iyo wuxuu ahaa ninka diintana fidiya dadkana isku dhaweeya wuxuu ahaa nin casrigii dowladda aynu noqonay aynu Soomaaliya ka go'nay markii hore wuxuu ahaa ganacsade leysan weyn buu lahaa
oo hool leysan ah markii aynu Soomaaliya ka goonayna wuxuu ahaa ceelaf weyn ninkii komishanka joogay intii uu joogay komishanka wax khalkhali kama dhicin inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt qof kastaaba waa dhimanaya marxuudka maanta waxaan dul joognaa aaskii Isxaaq oo jaamac warsame Isxaaq oo jaamac warsame wuxuu ahaa xukuumadda ceelaf weyn ay ku taagan tahay taariikhdu ku lahaa macallin buu ka noqday sheekh buu ka noqday shaqaal buu ka noqday waayeel buu ka noqday maanta waxa lumay dadkii magaalada tan ku dhisnaan jirtay ee dhisay soo gaadhay baarku weyn lumay wax badan oo ka dambeeyana garan maayo dadku la taariikhda ahaa Isxaaq oo jaamac ilaahay naxariista naasiye wuxuu ahaa nin isugu jiray wixii wanaag oo dhan macallin buu noqday aniga macallin quraankii buu noqday ilaahay waxaan uga baryayaa inuu sakaraadkii waa dhaafay su'aasha u fududeeyo kullu nafsin daa'iqatul mawt ilaahi geerida waa wada horanhay sida uu Suldaan Saciid sheegay saaka waxaanu joognaa aaskii Sheekh Isxaaq oo jaamac warsame taariikhdiisina isaga ka sheekeeyey aniga dee abtigay buu ahaa oo walaashiisa ay dhashay wuxuu ahaa sheekh waxaana dhalay sheekh baa dhalay oo jaamac baa dhalay aniga laftooda halkaasaan ka hidaysanayaa caailaddaasaan ka soo jeedaa sidaa la sheegay sheekhu wuxuu soo maray wuxuu ahaa odayaashii magaalada ugu waaweynaa halkan sheekhulbeled buu ka ahaa intii annagoo aanaan kicin wuxuu ahaa sheekhulbeledkii halkan joogi jiray magaalada sheekha waxa raggii ka mid ahaa buu ahaa ama ugu waaweynaa waxa runtii uu ahaa sidaa la sheegay nin nolol badan soo maray oo sheekh buu ahaa madrasad buu hayay ganacsi buu galay markii dambena wuxuu ahaa odayaasha magaalada jooga in badan hadda waa yar xanuunsanayay maanta waqtigiisii noqotay waxa ugu muhiimsan maanta gudoomiyihii komishanka ee kan ka horeeyey ee waqtiga dheeraana uu ahaa doorashooyinka runtii Hargeysa ayuu ku dhintay waa ka soo qaadnay waxaanu keenay meeshii uu markaasi ku noolaa ee dadkiisu joogay sababtu tahay waxaanu doonaynaa jamaca iyo jamaacada iyo dadka garanaya inuu markaasi lagu dhex aaso isaguna waa ku dardaarmay waxa runtii maanta muhiim ah inaan wada ducayno ilaahayna jannadiisa ha ku arsaaqo innagana samir iyo iimaan allah inaga siiya saadiqa joogna xabaashi Isxaaq oo jaamac ilaahay qafriga ha nuuro sheekh albeledkii degmada ceelaf weyn buu ahaa nin helo diin uu ahaa nin helo khayr uu ahaa markhaatigaas waanu u furaynaa ilaahay su'aasha ha u fududeeyo waanuna u ducayn doonaa mar dhow wuxuu ku dardaarmay in degmada ceelaf weyn lagu aaso si wanaagsan bana loo aasay sheekha ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tacsiib uga diraynaa geerida naxdinta leh ee ku timi Sheekh Isxaaq oo jaamac warsame waxaan uga tacsiibinayaa dhammaan shacab weynaha reer Soomaaliland gaar ahaan gobol Sanaag gaar ahaan degmada ceelaf weyn qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay waxaan leenahay sabir iyo iimaan Allah ka siiyo isagana naxariista janna Allah ka waraabiyo sheekh albeledkii buu ahaa oday buu ahaa dhaqan buu ahaa gudoomiye komishanka muddada dheeraa buu ahaa uga dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo degmada ceelaf weyn iyo guud ahaan Somaliland marxuumka aanu maanta geeridiisa ku taaganahay marxuum Sheekh Isxaaq oo jaamac warsame oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa xasan yeeshee meydkiisii la keenay degmada ceelaf weyn oo goobtii uu ka soo jeeday ahayd waxaanu leenahay ilaahay qabrigiisa ha u nuuro ilaahay qabriga ha u waasiciyo
sakaraadkii dhaafiyo su-aashana ilaahay ha u fududeeyo qoyskii iyo qaraabadii iyo intii eelahaydana ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo waxaanu leenahay nin islaama buu ahaa nin wanaagsan buu ahaa ilaahay qabrigiisa ha u nuuro waanu u ducaynaynaa in allaale inta uu aanu ka dambayno waa u ducaynaynaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun halkan waxaanu joognaa aaskii shiikhulbeledka degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ilaahay ha u naxariisto waxaanu leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun baan leenahay ilaahay ha u naxariisto samri iyo iimaan naga siiyo dhammaan gobolka iyo degmada iyo Soomaaliland oo dhan ilaahay samri iyo iimaan ka siiyo shiikhulbeledkii degmada Ceelafweyn ayuu ahaa ugu weynaa ilaa aasaaskii Ceelafweyn ninkii shiikhulbeledka ahaa ilaahay ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo caruurihii iyo ehelkii waxaan leenahay ilaahay samri iyo iimaan ka siiyo dhammaan Soomaaliland ilaahay samri iyo iimaan ka siiyo annagana samri iyo iimaan ilaahay naga siiyo waxaan kulli dhammaan uga tacsiyeenayaa qaranka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag degmada Ceelafweyn iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegey Sheekh Isxaaq Sheekh Jaabac Warsame wuxuu ahaa runtii sheekh aad iyo aad u qiimo badan waxa uu ahaa ama uu ahaa tiir ka baxay Soomaaliland tiir ka baxay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafweyn wuxuu ahaa shiikhulbeledkii degmada Ceelafweyn ama gobolka Sanaag baan oran karaa wuxuu ahaa komishinkii qaranka komishinadii ugu horeeyay uu ahaa degmada Ceelafweyn wuxuu ahaa nin caadila wuxuu ahaa sheekh codkar ah sheekh Isxaaq aan ku dhintay wuxuu ahaa waayilkii Ceelafweyn xundurta wuxuu ahaa shiikhulbeledkii degmada Ceelafweyn ama gobolka Sanaagba Soomaaliland waa tagaysaa ilaahay u naxariiso janno firdawsi ilaahay geeyo annagu waa soo wada shaqaynay hadday qaybta qandaraasyada tahay iyo hadday komishinkii tahay iyo hadday hawlad badan tahay magaalada joogta waayeelka ahaa sheekh caalimo buu ahaa oo daacada oo xalaala waxaan markaa ku soo koobaynaa ilaahay u naxariisto waxaan u soo qiimay ilaasaga oo cashuur aw jaamac sheekh jaabac baan isdaqay adkana daayo marka taariikhdiisa taariikhda dhaman karayno midaynu ka bayeynayno maaha wuxuu ahaa qudbi ummadda oo dhan ay u siman tahay wuxuu ahaa diinta ragga meesha fog ka gaadhay cid kale wax la weydiin jiray ceerigaaba oo dhan waa laysugu iman jiray wuxuu ahaa nin dadka oo dhan raali geliya wuxuu ahaa nin aad iyo aad gacantiisa furada xagga deeqda wuxuu ahaa nin aad u dulqaad badan wuxuu ahaa ninaan taariikhdiisu cid soo koobaysaa jirin wuxuu ahaa xagga diinta keligii maahayne ee sheekh jaamac warsame sheekh buu ahaa markaa wuxuu ahaa ragga diinta reerka diinta ku soo ururto waxaan isleeyahay wuxuu ahaa raggii asxaabtii kuwii ka dambeeyey kuwii ugu xagga diinta ugu afdheeraa maanta waxaanu joognaa maalin runtii waxa weeye reer Ceelafweyn ay aad iyo aad u soo shamireen waxa weeye marxuumka geeridiisii waana walaadkii dee ugu qaalisanaa Ceelafweyn intii aan u garaatinana dee walaadka u ahaa waa ardaydii iyo ehelkii iyo waxa weeye dhammaan magaaladii aad u muraysan wadhinta dee waa ilaahay qof walba maalin buu dhimanayaa maalintiisii buu dhintay ummaddiisu u timi ilaahay ha naxariisto jannatul firdaws ha geeyo dhammaan samir iyo iimaan baan leeyahay naxariista janna ha waraabiyo wuxuu ahaa aad iyo aad qiimo badan lama taariikhdiisa iyo ninkaa wanaagiisa nin aan 24 saac cadhoonayn mar walba habi ah mar walba dhibhayn wax yar oo ay ninkaas ay Thank you.
إنا إليه راجعون. الصحاب أو شيخ الصحاب شيخ جامع ورسمه وهو nin muriidka magaalada ayuu ahaa intii aan garaad qabay wuxuu ahaa culimada waaweyn dadka wax soo bartay nabadeynta wax ka tarta reer Ceelafweyn waxa ka baxay xukun weyn oo diimeed ilaahay hana sabariyana naga siiyo waa xaq geeridu waxaan halkan ka tacsiinaa heladii iyo qaraabada iyo asxaabta oo baxay taariikh dhinaca diinta lahaa taariikh dhinaca nabadda lahaa taariikh dhinaca ganacsiga lahaa waxaana ilaahay ugu barinaa asxaab inuu jannatul firdaws ilaahay u kaasimo halkan inna lahu wa inna ilayhi raaji'uun halkan geeridii isxaaq oo jaamac min halkan maanta u joognaa ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo adoon wanaagsan u ahaa oo runtii wixii aqoonta wax wanaagsan shaqaystay dadka soo qofna xol xumaadeen kasbana aad u tacsiirayay sida